looyaradeennii iyo dhammaanteenba ayaa waxaa dhacday in maxkamaddu go'aan ay soo saartay maadaama Kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn waqtiga looyaradeediina ay kala dirtay sababayada u gaar ah awgeed marka hadda waa tii loo ballamiyay 4 bisha annaga wali go'aanka iyagu waxa uu yahay taaganahayna dib u dhigaas maxkamaddu adduunka iyada go'aanka iska lahay dib u dhigtay oo 4 bisha ayaa go'aanka iyaga difaacayaga iyo ku talagalka iyagu yahay taa inaanu ka jawaabno fikirka iyaga dhiibno oo go'aanka Soomaaliya ay taagan tahay waxaanu mar walba taaganna kuna adkaysanayna inaanan aqbalahayn wax ka badan 4 November in la kordhiyo dawladda Kenya waxay codsatay 12 bilood waxay ku sababeynayso iyo sababaha ay cuskanaysaa wax iyadoo yaala kiisku waxa uu ku jira maxkamadda qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aan wax ka sheegno ma aha annaga fikirkayagii dawladda aan isla wada ogni dawladuna ogtahay waa cad yahay waa la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay waana mar walba ka jawaabnaa dalabka ay maxkamaddu ina dalbato annaga haddaan nahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya waxa u yeedhay maxkamadda adduunka si labada dhinacba ay u dhageysato waxay ku bilowday dhageysiga dhinaca Kenya iyo wafdigoodii iyo sharciyaqaanadkii dawladda Kenya oo doodii ay keeneen haddana waxaan la siiyay annaga inaan ka jawaabno jawaabteedu waa gudbinay doodeedu waa gudbinay waxaan markaa ka dhursugaynaa maxaa ka soo bixi doona maxkamadda annagu waxaan aaminsanahay mar walba inaan taaganahay 4 November waqti ku filan oo dhinac walba isku diyaarin karo garmaqalkana la keeni karo in doodooda dhinac walba la yimaado inuu u bisil yahay waa inaan maxkamadda cadaaladda adduunka ka dhursugnaa annagu waa ku kalsoonahay mar walba annagu mowqifkayagu waa 4 bisha November ayaanu ku adkaysano kordhintii labaad ay ahayd dawladda Kenya 12 bilood bay codsatay annagu waxaanu ku adkaysanay doodeediina ku jeedinay in 4 November aanu diyaar u nahay dacwadeeda inaanu maqalkayaga soo jeedino go'aanka kama dambaysta ay maxkamaddu ka soo saarto labada dhinacba waa la dhageystay aan ka dhursugno waxa maxkamaddu ay soo saarto mahadsantii Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow warbaahinta qaranka magaalada Hague wadanka Netherlands